السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gabadhii walaasheen ahayd ugubaad allah u naxariista ee ku dhimatay escalestano common iyadoo jidadka jiifta run ahaantii qaab calool xumo u dhimatay. gabadhaas sheekadeeda waxay kasoo bilaabanaysaa 2021 waxaa la qaatay ilmaheeda kadibna maskax garaac ayaa lagu bilaabay. maskax garaaca sida loogu waday maskax garaaca waxaa dadka qaarna way u dulqaataan oo way kasoo kacaan sideedoo kale, dadka qaarna way ku jabaan. escalestano marka waxaa ka dhacday gabadhii markii 5 sano ka hor 2021 ilmaheeda la qaatay ay aad iyo aad isku raacsiisay. ani markaa soo baxaya xataa waa la soo taliyay, agteedii la soo dejiyay, qol yariis ay soo dejiyeen oo cankabuud ah. waxaa ku dhahay ugbaadi abaayo wallaahi ilaahay iga sareeyo, 2 habeen ay la seexatay ma ahayd, 3 habeen ay gurigeeda kasoo tagtay aniga la seexatay. waxaa ku dhahay ugbaadi abaayo saana dadkan daacadka ah ani guriga waa liiga saarayaa saa u jeedo ma aragtay jidkina ay jiifiyaan ay rabaan. waxaa ku dhahay ugbaadi saan laguguma dayn doono, qolkaas yarka 3 kun ay ku dejiyeen, naagahaas way kaa saari doonaan, dhibaataa soo wajihi doontaa. qof walba ilmo ka qaateenna dadkaana waxay jecel yihiin inay ka takhalusaan si iyagu ay u noqdaan kuwii saxsanaa mar walbo. tii ilaahayna way qorneed. aduu markaa soo baxay muddo ka bacdi mar dhow waxaa maqlaaba ma ogid miyaa marka adiga soo baxdayba ugbaad guriga waa laga saaray oo jidkay seexataa. jidadkii ay seexanaysay aad iyo aad ugu xanuunsatay. ka fikir dhaxantaan dhacayso, qofka gaajo iyo dhaxan jidadka Sweden la jiiftay. ada calaa itaxal walaashay way dul qaadan weysay, waqtigeedina halkaas ku soo dhamaaday, haddana waa ay dhimatay. maanta escalestano lagala soo hadlay, waxaana la isoo sheegay in duugteeda ay Stockholm tahay oo Stockholm ugbaad lagu duugi doono hadduu ilaahay ka raali noqdo. soo marka duugta waa tagi doonaa haddii adresskii wax dhan aan soo helo. marka waxaad ii sheegayaa Soomaaliya saa wax u maleynaysiin ma ahan. ilma qaadashada wadankan waa ijraam ay dowladda Sweden kusoo indhacad tahay, aad iyo aad ugu soo indhacad tahay. ilmahaas la qaatayna wuxuu ku xukuman yahay dhimasho ama inuu noqdo cunug maskaxiyan aad iyo aad ugu xanuunsan. waalidka laga qaatayna waxay ku xukuman yihiin inay dhintaan. waa dambi ay dowladda Sweden faraha kula jirto, diyaarna u tahay cimrigeeda inta ka dhiman inay faraha saas ugula jirto ayna inkarto. soo marka problemkan waa uu jiraa, qof walbana tii ilaahay ugu talagalay